way wasiiradii reerkan ka soo baxay maxamed casamey dadka dhibanaya waa dadkoogii ma ariba laba wasiir ba meesha fadhiya oo maxamed casa labada wasiir midna qabiilka kaliya waxaan nahay wasiirkoogu haya maxay tahay wasaaradda uu haya biyaha oo haddana biilaan dadkiisa uu haya shalay waxaan agtaga gabadh alla biyo markay naga hortimiday alla biyo oo la soo duubay oo dar buluuga xinada TikTok iyo social media ba dhex wareegayay Facebook ba page-ka la soo dhigay alla biyo lahayd annaga inagu lahayd biyo nasiifada fadhiya xildhibaanada maxay tahay mukeefiyada fadhiya miyaanay dadkay mataliyeen 6 bilood ka hor dawladda Soomaaliland cod bay bariyeysay dadkan cod bay bariyeysay annagaas hor soconay xoolahooga u qalayeen guriyahooga ay seexinayeen cod baa laga rabay maantana dawladda Soomaaliland maalinka cod heshay albaabada xawso fadhiistay saddex xaaladood xaalad waa xaaladda abaaraha iyo waayaheeda xaaladna waa sida dawladdu ka yeeshay xaaladna waa tan dadka qurba joogta reer awdal inay soo gaaraan uga baahanahay waxaan doonayaa xaaladaha abaaraha marka hore waxaan la aamusnaa dad badan baa igu laanaa ka soo hadashid maad ka soo hadashid waxaan uga soo hadli lahaa inaan indhahayga ku arkaan rabay oo dadkani waxay qabaan iyo waxa haya iyo sida abaaruhu jiraan inaan soo arko shalay baan baxay waxaan tagay goobihii ugu darnaa 4 goobood baan soo maray hilowlaan soo maray sidoo kale libaaxley sidoo kale fadhixun maxay ahaaytay sidoo kale waxaan soo maray Hungary meelo badan baan soo maray oo gobolka Awdal ka tirsan qaarna Sanaad ka tirsan yihiin abaara aad waxa haya aad gurmad degdeg u baahan abaara xoog la haya dadkii biyo la'aan bay u dhimanayaan cunto la'aan bay u dhimanayaan xoolo ma haystaan xooli abaar ba haysa hatta gaadiidkii ay ku dhaansanayeen baa kici kari la iska daa shirkaamo lagu raray wax lagu soo dhaamiye waxa kici kari la gaadiidkii ay ku dhaansanayeen haday awr tahay iyo haday dameer tahay ma kici karayaan dadkii sidoo kale iyagiiba gaajo haysa iyaga laftigoogii xooli intaan loo tigin iyagiiba gaajo u dhimanayaba waxa jirtay meel dheer oo iyadana hoos timaada maxay haytay lughaya hoos timaada oo iyadna ay laba qof ku dhinteen sheedheer waxa jira inaan iyo hooyadii oo biyo la'aantaasi ay sababtay inay maxay haytay ay sababtay biyo la'aantaasi inay ceel ay biyo ka cabaan ceelkiina xawayaan ku dhintay xawayaankii ku dhintayna wiil iyo hooyadii ay ku dhintaan dadkii kale ee maxay haytay biyihii la cabeen ay xanuunsan yihiin haddaba maxaa uga qorshaysan dawladda Soomaaliland maxaa uga qorshaysan anagu xildhibaanadayadii maxaa uga qorshaysan wasiiradayadii wali dadka ambalaas looma dirin caafimaad looma dirin dhakhaatiir looma dirin dadkii halkii bay ku xanuunsanayaan sheedar bay wali dadka ku xanuunsanayaan sidoo kale maxay haytay labadii qof ee dhintay wasiir raa awdal oo ka hadlay ma jirto xildhibaan raa awdal oo ka hadlay ma jirto bara saab gobolka loo soo magacaabo ka hadlay ma jirto maxay tahay maayir oo magaalada maxay haytay ka hadlay ma jirto dadkani maxoolaa dhimanaya miyaanay ahayn dad bil aadana oo maxay tahay gobolkan u dhashay miyaanay ahayn dad bil aadana oo maxay haytay dadkan u tirsan miyaanay ahayn wasiiradan mukeefiyada fadhiya xildhibaanada maxay tahay mukeefiyada fadhiya miyaanay dadkay mataliyeen ahayn 6 bilood ka hor dawladda Soomaaliland cod bay bariyeysay dadkan cod bay bariyeysay annagaas hor soconay xoolahooga u qalayeen guriyahooga ay seexinayeen cod baa laga rabay maantana dawladda Soomaaliland maalinka cod heshay albaabada xiratay maalintii horena sidaas dadka loo bariyay maanta xoolahooga ay madheen ee iyaga gaajo u dhimanayaan ee biyo la'aan u dhimanayaan 6 bilood ka hor baa cod la weydiisanay waxaan nahay anagu reerka kaliya marka laga soo dago Soomaaliland saami baa meesha lagu joogaa reernima meesha lagu joogaa way wasiiradii reerkan ka soo baxay maxamed casamey dadka dhibanaya waa dadkoogii ma ariba laba wasiir baa meesha fadhiya oo maxamed casa labada wasiir midna qabiilka kaliya waxaan nahay wasiirkoogu haya maxay tahay wasaaradda uu haya biyaha oo haddana biilaan dadkiisa u go'ayaan waxaan nahay wasiirka kaliya macdanta haya dadkiisi calaf la'aan ay u go'ayaan ay dadkiisi iyo xoolihiisba calaf la'aan ay u dhimanayaan maxay tahay waxa jooga maxay tahay la taliyay baa jooga maxay tahay madaxweynaha oo biilaa jooga dadkoogii uma gurmanayaan dadkoogii biyo ma siinayaan dadkoogii calaf ma siinayaan dadkan maxay ku matalaan hadhow maxay hore saddex xildhibaan baa ugu jira baarlamaanka maxamed xasan maanta haddana dadkoogii saas ay ugu dhimanayaan maxay tahay biyo la'aan ugu dhimanayaan maxaa lagu dooranaya dadka codkooda ku yimaadaan miyaanay ahayn dadkani miyaanay ahayn dadkii soo doortay miyaanaan ahayn dadkan dhimanaya xoolahan xoolay markay u tagaan loo qalay miyaanay ahayn dadkani maxawayaan baa dhimanaya waxaan ka codsanayaa haddaba talabaad in ku daraya bulshada reer awdal
xildhibaanadayada waad aragtaan wasiiradayada waad aragtaan madaxdii aan dooranay waad aragtaan madaxweynihii aan dooranay waad aragtaan bara saabkii la soo magacaabay waad aragtaan maxay tahay maayirkii magaalada waad aragtaan intaas oo maayirkii salaliya kii maxay ahayd awdal baad aragtaan waxaan u sheegayaa qurba joogta reer awdal dadkoogi gaajo u dhimanayaan qof walba oo riyaal haysta $10 haysta 5 walaalkii inuu soo diro dadka abaaraha haya shalay waxaan agtiga gabadh alla biyo markay naga hor timiday alla biyo oo la soo duubay oo dhar buluug ah TikTok iyo social media ba dhex wareegayay Facebook ba page-ka la soo dhigay alla biyo lahayd annaga inagu lahayd biyana siiya inama yar bay la socday saacadiin oo isxil qaamay oo iyagu kaligood inta mushaarkii dadka ka ururiyeen u geynaya marka aanu waxaan fariin u dirayaa qurba joogta reer awdal inay dadkooga soo gaadhaan cidna uma maqna ceelo uma maqna qof maqan oo maanta la leeyahay waxaas dawladda laga keenay laba gaari inta la keeno oo raashin la isku sawiray tagayaan madaxdii halkan geel muxuu dhex yaalaa masaajidadu dhex yaalaa cuntadii xafiisyadu dhex yaalaa mukayfka la isku shidaya dadkii cid uma qani ma jirto waxaan ka codsanayaa qurba joogta reer awdal dadkan in loo kaco dadkan in raashin la soo gaarsiiyo biyo in la soo gaarsiiyo biyaha weelka ay ku shuban lahaayeen waa ka adarkay sida birke way ku sumoobeen waxyaan ceelashoodii hore ay qoteen waa ka xawayaanka ku dhacayee in loo iibiyo bahala waaweyn oo maxay taangiyo biyaha ku shubtaan in booyada dawladdu booyaday leedahay dawladda Soomaaliland maanta booyaday leedahay ma laba booyadood dadka u dhaamiya loo diri kari waayay waa maya hadaba dadkeena inaga u nool waxaan ka codsanayaa qurba joogta reer awdal dadkooga inay soo garab taagaan dadkooga inay soo gaaraan xoolihii way madheenad nafta dadka loo gurmado dadka xanuunsan ee maanta biyaha ku simoobin in loo gurmado intii dhimatayna Allah ha u naxariisto wasiir maanta intii soo taagan ma xildhibaan raawdalo ka hadlay ma jirto laba qof halka ku dhibatay yiri ama hal qof maanta ku dhintay yiri dadka iyagu ari maaha ayna maaha ee waxa weeyaan reer awdalow inaynu waxaan sameeynayna aynu isku tashano dadka abaaraha in la soo gaaro waxba aanu idin ma qardad badan bay ugu laamaad ka soo hadashid nicmaay waxaan idin qariyay ma jirto maanta dadkiini raashin la'aan iyo biyo la'aan bay u dhimayeen nin u maqan ma jirto ilaahay ba u maqan inta ka sokaysan inaga u maqan dadka hala soo gaadho wasiiradan waxa leeyahay waxaad beerateen iyo waxa aad abaalkaad imika idinku abaalka la idin dhigtay inaydaan gudin baan idin sheegaynaa ayaan idin sheegaynaa saddex xildhibaan baa halka nagu matala iyo laba wasiir baa nagu watala midna reerkooga kuma soo noqon reerkooga midna uma imanin marka waxaan ka codsanayaa gobolka awdal dadka degan iyo gadabursiga kala in dadka loo soo gurmado insha Allah bidmillaah kariim dadka in loo soo gurmado ayaan ka codsanayaa insha Allah bidmillaah kariim abaar xoogan oo dhacayaan dadkana u soo duceeyay inuu Ilaahay roobab iyo maxay tahay soo qaboojiye gacanta Ilaahay baa lagu dhargaa waxa jirtay inama yar oo isxil qaamay oo sacaadadiin inamada ayar wuxuu heshaan ama ugu soo hagaajisana ama idinku shakhsi oo la soo hadla ama idinku tuulo ula hadla ama magaalo ula soo hadlo dadka hala soo gaaraan in leeyahay abaarahan Allah in ka saaro waan soo ducaynaynaa waxaan ugu darayaa maxay ahaatay maanta bara saabka gobolka awdal wali intuu soo taagay maxay ahaatay maxaa la qabaa mu qorane maxay ahaatay magaalada xog hay leedahay bara saab bay leedahay magaaladu waxay leedahay maxay ahaatay rag suurinta saa xudeen mukayfiyada hoos fadhiya looma baahda anagu maanu dooran inay suurir hoos fadhiyaan maayirka maanta maxay ahaatay gobolka awdal intuu soo baxay maxaa jira mu oranin magaaladii loo doortay intuu hoosta ka soo xidhay mukayf albaabka hadii lagu qaraaca hatta bara saabkuna albaab ma furo maxay ahaatay xogayo albaab ma furo maxay ahaatay maayirkuna albaab ma furo waraga suurka inta xidheen bilaa macna halka lagu soo magacaabay marka waxaan leenahay reer awdalow cid inoo maqan ma jirto hala isku tashado idin leeyahay hala isku tashado cid inoo maqan ma jirto